Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda dhammaantiin meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkayga. Haddaa hore ila joogtay waxaan ku leeyahay nala sii joog hanaga tagin. Haddaa nagu cusub tahayna subscribe noo saar kambaleelkana furo si aad ugu mid noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaalka aan soo dhigo daawado insha Allah. Maanta waxaan idiin wadaa keeg yar oo macaan badan oo fudud oo casriye ah insha Allah. sida u suubiyana waa idin la wadaagi doonaa insha Allah. Waa keeg yar oo maasha Allah casriyaha ku habboon oo inaba caadi ahayn aa ka heli doontiin. qaabka u suubiyo ayaa idin la wadaaga. asxaabteyda halkan waxaan ku haystaa 3 xabo oo ukun aan ku haystaa. Hadda waxaan suubinayaa ukunta waan qasaa insha Allah dhabo macnaha waa isdhex gelinayaa si fiican u qasaa insha Allah ukunta. asxaabteyda waatana waa soo bagay ukuntii si fiican u soo qasay. waa ujeedin marka hadda waxaan ku soo darsan doonaa saliid aan ku soo darsan doonaa insha Allah. koob oo halfkiisa oo saliid aan ku soo darsanaa insha Allah. marka saliid ku daran oo ku walaaqi doonaa bakeerigaas leeyahay waxaan wax ku cabiran doono caanaha waxa kulli iyo burka xataa bakeerigaas leeyahay ku soo cabiran doonaa. marka hadda heel aan ku daray waxa waay hadda heelkii aan ku daro ku qasaaya waa ukuntii iyo saliidii iyo heelkii waa hadda waxaan isku qasaa si fiican isku qasaa. haddana waxaan ku soo darsanayaa bakeeri oo sokor aan ku soo darsanayaa waa ujeedin marka ayadana si fiican isku dhex gelin doonaa. haddana caana ku soo darsanayaa koob oo halfkiisa oo caano ah waaye marka hadda waa is dhex geliyay si fiican isku dhex geliyay. hadda waxaan ku soo darsanayaa baking powder oo qaando ku soo darayaa si fiican la rabaa inaad isku dhex gelisid oo si fiican oo kurtun waxaas inay ka yeelan si fiican isku dhex qasay. marka hadda asxaabteyda waa soo bagay waa ujeedin marka hadda burkaan ku soo bilaabaa markaan ku soo darayaa. hadda koob buraan ku soo daray bakeeri oo buraan ku soo daray marka hadda ayadana waa is dhex gelinayaa kiskis la ku soo daraa insha Allah intuu ka soo adkaanayo adiga 2 koob oo bur la ku soo darsanaya qiyaasta waa 2 koob oo bur ah waa bakeeri ah. marka hadda bakeeriga koobaad oo burkana waan ku soo shubay hadda si fiican marka isku dhex gelinayaa kadibna burkii oo labaad aan ku soo daraa koobkii labaad oo burka ahaa ku soo dari doonaa. kadib marka waxaa suubi doonaa hadda waxaa ku soo darsanayaa koob oo buraan ku soo darsanaa asxaabteyda. koobkan burka marka ku soo darsado waa soo dhex gelinaa si fiican isku soo dhex gelinaa gacanta la gala si fiican marka isku soo geliyo isku soo walaaqo isku imaanayna insha Allah. maadaama haddaan dhaho birtan aan ku walaaqa kurtun iga yeelna marka ana kurtun ma rabi soft yar waa inaa ka soo dhigo insha Allah isku imaanayna. asxaabteyda waa kana gacanta la gala soo burburiyo ujeedin si fiican u soo qasay. marka hadda waxaa suubinayaa saxankii aan ku shubi lahaa diyaarsanaa insha Allah. waa kana asxaabey saxankii saliida soo marsaday kadibna keekii aan qasayay aan ku soo shubay. marka hadda ovenka gelinaa. kana asxaabteyda ovenkii uu ku jiro hadda soo guduudanaa markuu si fiican soo guduuto aan ka soo bixin doonaa. kana uu soo guduutay waa ka soo bixiyay marka hadda waxaa suubinaa istakiin aan ku fiirinayaa qoriga waxa uu malahan marka waa ujeedin marka biseel waayo qoriga haduu wax ku soo qaadaynin biseel waayo. hadda asxaabteyda waa soo jarjaray si qurux badan oo soo jarjaray maasha Allah. marka hadda saxankii aan ku soo diyaarinayaa saxankan aan ku soo diyaarsaday miisku saaray ma fahanteen shaah xataa waa loo karsaday marka casriye fudud waayo maasha Allah oo inaba caadi ahaan waaye oo ka heli doontiin insha Allah. marka waxaan ku leeyahay soo dhawow haddaa ka heshay like noo saar haddaa nagu cusub tahayna like subscribe comment xaqiina waaye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.